bal marka albaabku istaagta ka war haye saacada xagaad ka timi xagaad ku maqnay maxaa war mushkiladan iyo taxiimadan aad soo doontay waa maxay soo dib u noqonaya muuqaalkaygan waxa uu hadiyad u yahay dumarka xaasleyda ee reeraha leh raggi waa loo taaglaayay dumarkii waxay leeyihiin raggi waa ka cabanaynaa ninkaygii waa iga sii jeedaa waxa weeye waa kan cabashooyin fara badan baa soo kordhaya waxaan doonayaa muuqaalkan idinku sheega sirta aad ninkaaga ku hanan karto ninku waxa jira waxyaabaha qaarkood uu u baahan yahay waxyaabaha qaarkoodna in laga ilaaliyaa buu u baahan yahay ninkaaga saad u kasbato wuxuu kaaga baahan yahay jacayl siiso jacaylku maaha kaliya waan ku jecelahay siyaabo kala duwan baa jacaylka loo cabiraa ninkaaguna uu ku dareemi karo inaad jeceshahay talaabada koowaad aad ninkaaga ugu cabiri karto inaad jeceshahay waxa weeye inaad u sheegto inaad jeceshahay waa talaabada koowaad inaad ku taado xaaji aad baan ku jecelahay fariin ka daba dirto marka uu kaa tago marka aad guriga wada joogtaan aad ugu yeedho erayada waxa weeye jacaylka abuura inaad ninkaaga ugu yeedho waa talaabada koowaad waa jacaylka ku muujinayso hadaad ugu muujin kartaa waxa weeye inaad ninkaaga u sheegto inaad u xiistay arrinka afraad aad ugu muujin kartaa waxa weeye inaad ninkaaga madaxa ka dhunkato hadda maaragta madaxa ninkaaga ka dhunkanaysa madaxa oo aad ka dhunkataa macnaheedu waa maxay qadarin jacayl ixtiraam waxyaabo fara badan macnayaal fara badan buu sheegaya adiga aabaha iyo hooyada markaad u timaado madaxaad ka dhunkataa sababta aad xubno kale uga dhunkan weyda maxay tahay mararka qaarkoodna waxaad ka dhunkataa maxay gacantaad ka dhunkataa labada meelood ee qofka loogu muujiyay inaad jeceshahay qadarinayso tixgelinaysaa waa inaad qofka sujuudda ka dhunkato weliba qaybta madaxa ee sare aad ka dhunkato iyo inaad qofka gacantiisa aad dhunkato waa labada meelood ee qofka loogu muujiyay inaad jeceshahay arrinka kale uu ninkaagu ugu baahan yahay waxa weeye inaad ammaanto waa nin aan la ammaanaynin guriga ma joogayo ammaan ninkaaga maxaad ku ammaanaysaa ninkaaga waxaad ku ammaantaa raganimadiisa alla ninkaa raganimo badani ma jiro xaaji yaa nin ka tegay baa tahay waxaad ku ammaantaa ninkaaga deeqsinimadiisa wax bixintiisa ku ammaan waxaad tahay maasha allah deeqsi baa tahay sida wax noo siiso sida aad dadka kale ugu roontay sida waxa weeye qaraabada aad u xidhiirso yacni cid kula mid ahay ma jirto ninkaaga ku tixgeliyo ku qiime oo ku ammaan hadalkiisa hadal markuu yiraahdo xataa bal hadalka quruxda badan la eeg fikirka aad soo jeedisay haddii magaalada oo dhan ragga jooga la isu geyn lahaa fikirka ma keeneen adigu la dawaa arag baata yaa lagu taaheli maayo waxaad ku ammaantaa ninkaaga labiska iyo dharka uu xiran yahay ku ammaan waxaad dharka waad ku soo baxay marka dharka xirato maasha allah aruus baad u eegtaa ama boqor baad u eegtaa ama sidan aad u eegtay macna wax uu ninku ka heli karo oo ku dhoola cadeynayo habi uu ku dareemayo ninkaaga waxa weeye ku ammaan ninkaaga waxaad ku ammaantaa inuu rag oo dhan uu ka sareeyo rag oo dhan adaa ka sareeyay waxyaabaha musiibooyinka ka mid tahay ninkaaga inaad rag kale inaad barbar dhigto xaaji wallahi waxa weeye nin wanaagsan baa tahay laakiin ninka maartay reerka deriskayga ahaa waa nin wanaagsan weeyaan oo gabadhiisa waxaas uu sameeyaa wacaygano rag waxa kuma diiraan sirtaa iga qoro weliga ninku kuma diiro in ninka la barbar dhigo reerkan kaleba ninka gurigan degan maaragta ha reerkoodii raashibu keeno gabadhii dahab buu siiyay waa kaasoo adigoo isla istumulad garee ama cari oo bal isna hays qanjiiriyo oo bal ha ku keeno dahab ha ku keeno wallahi inaanu shalfad ku keenin ninkaas ninka nin lama dhinac dhigo sidiisa ku qaada ninkaaga talada kale ee qodobka afraad qodobada dhowrka ay waxa soo wada hoos galay maxay ninkaaga ammaan qodobka afraad waxa weeye ninkaaga tixgel waxa tixgelisa fikradiisa aaraadiisa sidoo wax u arkaayo intaba tixgeli isagoo fikirkiisu aad aragtay inuu fikir minor iska yahay oo liita aad aragto asleed waa ninka oday wallahi ka hoos faa xaaji way insha Allah aad u maadsanta stiil inta stiil karayso ha u sheegay ninkaaga inuu waxa weeye fikirkiisu xun yahay ama waxyaabaha noocaas mar hadaan ahayn fikir diinta Ilaahay ka soo horjeeda aan ahayn oo diinta meel laga dhacayaan ahayn sidiisa ku daa hadda ma aragtaa qodobka shanaad ee ninkaaga aad ku kasban kartaa waxa weeye u sheeg shay kasto aad sameynayso hadda ma aha markaad sameeyso ka bacdi marka aad sameynayso doonayso shayga u dhaqaaqda xaqiisa u sheeg waxa xaaji waxaan doonayaa inaan qabtay ee bal ka waran markaas uu fikirkiisa ka dhiibto markaas uu ku control kara koon kara ma kada waxa sameeyay ma waxa sameeyay ma waa fikir wanaagsan ma wallahi waa fikir yaani markaas uu fikir ku darsan kara laakiin wixii aad soo sameysay intaad suuqa maanta oo iska wareegto oo waxa doonto soo sameeyay ha maanta xaaji ee saaxiibadii baan u tagayo naamaana guriga kaga tagano koona guriga fadhi waa maxay wareegan la timi yaa kuuli guriga ka bax ninkii fikrad kale iyo mushkilad kale ku abuuraysaaba hada ma aragtaa qodobkaasna waa qodobka shanaad ee qodobka lixaad ninkaaga cunto macaan si haddii aanad cunto karinta aqoonna soo baro
meelaha cuntada lagu barto cunto karinta lagu barto soo baro ninkaaga gabadh baa kaa qaadi karta cid kasta kaa qaadi karta gabadh iyo reer maalin casuumad u sameeyay oo cunto macaan sameeyay nin wallahi cuntadii halkaas adoo qadadii u kariyay ninkii reerka lahaa maalin walba la hadlay war nin tolo reerkii qoriga magaranaysa halkaas oo dhaqanada noocaas raggu meesha cunto macaan ku dhadhamiyaan weligood way ag taagan yihiin qodobka toddobaad waxa weeye naftaada qurxi mar walba naftaada qurxi naftaada qurxinteeda ku dadaal dumarka Soomaaliyeed dhaqamada ay leeyihiin waxa kamid ah gabadhi maalinta ay ilmaha koowaad ee dhashaaba ugu dambeysaba inay tahayba nin gabadh uu nin sugayo ilma ma dhashay qolkaas ay degaysaa iyadii ilmaheedii qolkaas ay degay ninkana qolka wax lagu tuuraya fadhiga ama sariirta looga tagaya sariir illa waxa arkaysaa ninkii reerka lahayd labada habeenimo saddexda habeenimo Facebook ku jira waar maxaad ka dhex qabanaysaa Facebook waaraay waa iska soo jeedo caawinayo oo islaantii yar waar waa la kala seexdo magaranaysa sidaad u seexataa ninkaaga soo jeeda ila ninkaaga inaad ilaashataa baad doonaysaa Soomaa ninkaaga inaad daryeel siisaba laga doonay hadaad kaba hor seexato oo habeen kasta ku yimaado idinka iska hurda isna uu fikirayso oo tol xagal qabataa hadhowtan waxa la san ninkii waa laga qaaday oo gabadh baa ku wareegaysa inta ninkeegii jafjaftay waxa ma jafjafan oo ka seexan jirtay qodobka sideedaad waxa weeye ninkaagu markuu ku baahan yahay baahidiisa waxaad u dabooshaa sidii ninka socdaalayo kale qofka markuu ka socdaalayo maanta uu ka tagay wuxuu ku weydiistay oo soo siimaysid ugu dadaal inaad ninkaaga u siiso wax kasta oo kaaga baahdo naftaada u baahdo haduu adeeg kale kaaga baahdo sidii qof ka socdaalayo ka tagay sida loogu adeego ugu adeeg talada sagaalaad waxa weeye ninkaaga muhiimad gaar ah si markuu xanuunsanayo muhiimad gaar ah si tixgelin gaar ah si wuxuu dareemayaa haduu maanta soo dhul dhaco oo xanuuna ku dhacaan in cidda ku hareysay adiga ay tahay haddii caruurtiisa iyo dhibaato kale familkiisa ku yimaadaan cidda waxaan oo dhan mas'uuliyada u hareysana adiga tahay buu dareemaya waxaad iska ilaalisaa qodobo dhowr ah kow ninkaaga inaad daba gasho iska ilaali mobilkiisa inaad daba gasho fikradihiisa inaad daba gasho dadku la socdo inaad daba gasho dabagal inaad ninka ku hayso sida aad tahay waxa weeye CID ama ciidamadii damdamiska ama waxa weeye meel dhibaato ka dhacday yani dadka waxa daba galo kale soo dah noqon waa qodob labaad ninkaaga ha weydiin maxaad sidaa u samaysay mushkilada ugu badan waxa kamid ah ninkii markuu guriga sidaa u yimaado wax loo diin maxaad telefoonka naga qaban weyd maxaad wax weeye alaabta soo qaadi weyd waxa xilligan aad soconaysa meena tixgelinayn meena jeclayn danaga mali buuq bay gabadhiba ku bilaabaysaa ninkaas meesha noocaas ah ka nin reer laho habeen oo dhan maqaaxiyaha fadhiyada arkaysa 12 habeen maqaaxiyada ka kacaya warawlo mad reer laan haaniyo wada maxaad reerka u toomo iska caawinaya war caruurtaada iyo gabadhaada u baahan la caweyso waa nin aan laba tixgelinayninba oo shaqooyinka uu qabtaba lagu amaanayninba waa la oran xaaji marka caruurta la joogto ee aad nala ciyaarayso farxadda guriga ka jirta sidaanu habi u dareemayno qiimaba aan laba siinayninba nin aan laba amaanayninba ninkuna wuxuu ku shaqeeyaa oo shidaalka gabadhiisa ku shaqeeyaa magaalada kale hadii laga amaanay leeyahay waa nin rageed baata waxa tahay ninkii ragga u sitay boqor baata balaayaad habaar ilaahay miduu ku dhacay baad waxa hadii maanta lagu dhaado xum macno sameeyso gabadhiis markaa ku taado ma sha Allah balse aad u egtahay dariiska markaa xirata dharkaada xirato quruxdaada iyo qaayaha iyo jamaalka aad leedahay intaas wax uga qaalisanta wax walba mar walba guriga uu imanaya ninkaas laakiin nin la cunaya guriga ma sii joogayo ninkaaga dabagalka ka ilaali ninkaaga dabagalka ka ilaali ninkaaga dabagalka ka ilaali su'aalaha ka ilaali su'aalaha ah xisaabtanka isla xisaabtanka wala adigu ma haysatid ITL ma haysatid ama ma tiid waxa weeye ciidamada maxaa qoladan maxaa la dhahdaa dabagalka iyo report qori mis waxa weeye waxaad u baahan tahay odaygaaga u baahan tahay farxadda u baahan tahay inta aad isaga siisay in leeg buu isna ku siinaya dumarku waxa iska oranayaan ninku isaga ninay isagu inuu dulqaad badan sameeyo warshuu ninku u dulqaad badanaya ninku sax dulqaad inuu sameeyo looga baahay laakiin mushkiladaha haystay adiga taada uu ka badan markuu saa u shaqo tago nin buu shaqeynaya ninkaas gumaysanaya caayaya aflagaadeynaya gaari uu soo raacaya kii gaariga istilayaan wadada dhaxa qaar tuugi u galaysa waa la dilaya dhibaata ku dhacaysa qaar kale isku dhacaya qaar ba khiyaameynaya isagoo koodadle oo nabar loo soo dhibay haduu doono sabaaxada loo soo dhibay oo dhibaataysan oo nafta waxay sabab guriga kugu imanaya bal marka albaab ku istaagta ka war haye saacada xagaad ka tim xagaad ku maqnay maxaa war mushkiladan iyo jaxiimadan aad soo doontay waa maxay soo dib u noqonaya waxyaabaha ahamada yareeyana waxa kamid isku buuq ah hadii gabadhiina aanay habi ahayn ninkiina aanu habi ku ahayn daabta waxba helmaysid gabadhiina gurigaasna uu dumaya marka imka waxa weeye dumarow talooyinkaas idinku idin khuseeya insha Allah ta'ala muuqaal dambana waa soo sameyn doonaa ragga kula hadlayo bal inay fahmaan dumarkooda
insha allahu tacaala muuqaalka markuu kasoo gaarna asxaabtaada la wadaag muuqaalada inaan is ag dhigine asxaabtaan la wadaagno faa'iidadu caam ha noqoto markuu kasoo gaaro sii sheergareeyo facebook inaga fahansiiya wuxuu doonayo aad iyo aad baa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu